gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Salebaan Axmed Guulaad ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka degmada Boorama kadib markii uu muddo 3 bilood ku maqnaa dibadda isagoo oo raadinayay sidii macallimiin iyo buugaag tayo leh uu ugu keeni lahaa jaamacadda Camuud waxaana gudoomiyaha jaamacadda Camuud si diiran ugu soo dhaweeyay deegaanada Boorama ardayda dugsiyada sare jaamacadaha iyo maamulka jaamacadda Camuud waxaana munaasabadii soo dhaweynta Professor Salebaan Axmed Guulaad gudoomiyaha jaamacadda Camuud ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud Professor Axmed Cabdilaahi Boqore waxaana uu ka waramay ujeedadii socdaalka gudoomiyaha jaamacadda soo dhaweynta runtii ومدة نقطة لك اللي هنا بيسود وهنا كتب لك في محلاقة تلك ملايكة 3 بلاد مدة 3 بلاد كنت هذا واحد حصتين أنا بسود وهنا لكن هو مدة أنا نجس سوق هذا أنا هو وضع هذا اللي بعدي اللي يسود لكن أنا هو مدة نجس سوق هذا كنت وحنا موجودين إيسا يعني إن أنه تبي نبأ تبقى المقطع هذا واحد كلا هنا بيسود هني وده وما هذا تكير كنت أتوقع على زيادة كلا waxay isaguna ka hadlay soo dhaweyntaasi sheekha beledka magaalada Boorama Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawaar waxaan ku soo dhaweynaa wadada intii qaybtii dambe ee xarsamayd ee isku xidhkii u dameeyay bad fursadooda la qoontay inta maqlin waan ku soo ducaynay kullu waxaan u arkaynaa safarkaagaasi safar barkaysan inuu yahay oo baahda waliba gaar ahaan waxbarashada aad u sido tilmaamo badan iyo talooyin badan aad u sido adigana sharaf bay ku tahay jaamacadihii aad ka soo baxday inaad maanta haddana tagto adigoo jaamacadihii ka madaxa inaad haddana tagto sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Salebaan Axmed Guulaad ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay idinkan aad iyo aad idinku mahad celinaya soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha leh ilaa dirasada un bay ahayd marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanan arkay wax aad qiiro geliya wadada intaan ka maqnaa waxaan kaga tagay iyadoo xagga shishe eegu ka shaysa farsamada loo sameeyay iyo inta dambe sidan loo soo agaasimay iyo ilaa halkan quruxda ay leedahay runtii xaggaana waa ka sheegay azarda inay tahay hay'adaha imaka ugu wax qabad badan ee dalkan iyo gaar ahaan dabcan gobolka Awdal waa runtaa waan soo bahaliyay barto aanu dibadii aan ka imi iyadoo waliba si gaar ah la ii soo dhaweeyay si xushmad gaar ah oo la iga warinaya ma aniga shakhsi kaliya Camuud la iga warinaya runtii iyo gobolkaba dadka Soomaalida oo dhan kuwa reer Soomaaliland iyo kuwa reer Awdalba ay aad iyo aad idin soo salaamayeen idinku hambaliyeen gobolkana waxa weyn aad ka qabateen gaar ahaan jaamacadda Camuud